marka waxa horta malaga ko suurada malaga arkaysa hal dhahay inta waxa ku yaalay xidid qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dabool fakashafna anka qidaa'aka fabasaruka al-yawma hadid ko talaabada kood qofka markuu adduunka ka tagaayo waxa la faydayaa ishiisa dabool yar oo saaran oo ka qarinaya qofka malaa'ikta uma jeedno samada waxa ka socdo uma jeedno jannadii naarta uma jeedno malakumoodka meelahan ka adeegana uma jeedno nalka qariyo laakiin xaaladaas qofka adduunka ka tagayso wax buu arkaysaa qofkii wuxuu galay situation kale caalamka dunya ka tagay caalamul aakhira iyo u wareegsana marka daboolkaana koow laga qaadayo isha hoosteeda ku yaalo yaa qof la fiiday marka wuxuu arkaa mubaasharatan malakumoodkii arkaya uu la hadlaya marka malakumoodkii la ruuxda wanaagsan ee soo bax ilaa jannatin arduha samaawaati wal ard bishaarada ku halka suurta maxay ahayto uu ka sina janna u soo baxu leeyahay jaana meesha jannada ka geli lahaa waa la tusaya qofka kor u fiirnaa marka ishi indhihi raacaysa meesha u fiirnaya marka ملائكة الرحمة على صعته مركو يهي مؤمن يهي ملائكة الرحمة على صعته والروح القادس إن الذين توفاهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون مركز الله بشارينا يا غفكي ولا ليه هي marka malaa'ikta soo socdo guriga wax qolku soo buuxsama meesha qofku ku dhimanay malaa'ikatu rahmad waxay sugaysaa marka nafta inuu malaga soo siibo malaga qaabilsan ruuxda inuu siibo markuu la hadlo wuxuu bilaabaa shaqadiisa hore ka bilaabaa marka waxa jirku wuxuu soo marka wadnihi wuxuu isku diyaarinaa inuu istaago jigjig oo motor oo damay amal oo kaleeto motor oo maaragtay oo shidaal marka gaaska ka dhamaad rig dhahay motorki markuu marka wadnihi marka wuxuu bilaabaa inuu istaago dhiig wareegiisa marka asna isbedelaya uu isbedelaya marka wuxuu bilaabaa marka inuu tartiib u soo siibo marka fariyareedu ka soo bilaaba dharag u soo siibo lugta saaqeeda bartabaheedu keenaya haddana marka uu soo siibo step wuxuu keenayaa ilaa xuduntu keenaya haddana marka inta ka culustaadeen qaybta hore ka culustaad waxa laga yaabaa qofka marka jirka qaybta hore ka soo baxdo qabow waa korkiisa soo galaya dhiigga waa isbedelaya isla markii uu cadaanaya midabkii guduudka waa baaba'aya marka ilaa marka xudunta soo gaartay in qofka la dareemin baa dhici karto oo asaga kor uu fiirinayo oo dareemayso qofka in uu ajishiisa dhamaarto baa uu fiirinayo uusan hadlin ka tawxiidkii shahaada qofka loo qabtaa la xasuusiyaa haduu hal mar ku dhawaaqa bas waa laga aamusaa lama ilaa qofka xaalad kale ku jira ma kula hadlayo adi aqliga waa isku darsoomay maxay waa qasan yahay wadnihi waa istaagaya marka qofkan xaalad kale u galay marka u baahdo shahaada ku dhawaaqa cunuga qofka wax kale maxay to shibaa laga dhahaa marka ruuxda markay xudunta soo gaarto marka wadnihi intuu ku fadhiyay xogaa ka culustay way soo jiidmanaysaa markii la soo jiido marka qofka xalqayba gacmihiisa gariir iyo lugihi inaad waltafati saaqo bisaaq lugu inuu isku dhufto quraanka uu sheegay markii ay xudunta ka soo baxday ee wadnaha ka soo siimanayso waa la dareemaa qofka in ajishiisi marka waqtigiisa uu bixi lahaa marka tawxiidka la maqsiya lagu hal isugu qabtaa indhaha la soo celshaa marka maxay ahayto wadnaha marka xagiis ay ka soo siimato haddana halkaan kalxanta imaanaysa kala idaa balaqatil xulquub meeshaan soo gaaraysa marka ruux soo gaarto ka sii culus hadana marka uu qofkii ama qofkii marka inuu hamaansada dhici karto ama uu taxarruk sameeyo xogaa dhaqdhaqaaq xoog uu ama uu harraq uu dhaho qofku si uu dhaho marka maxay ahayto afka iyo sanka kale marka inay baxdo waxa lagu fahmaa sanka dhinacaan dhag u dhahayaa ama dhinacaan u leexanaya soft iyo noqona بس قفكي marka jirkiisa dhan waa isdhiibaya marka gacantii dhulka waxay ku soo dhacaysaa sarirta korkeeda ku soo dhacaysaa ruuxdu way baxdo marka waa xaalad adag oo Ilaahay qof walba suulaysa waa subhanahu wa ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala amiin